السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلام يا دمانتي ما مالك سوق تيمبا. كل ما المهن شقوين كسر جابس بقول شري صوب طاعة سنة عصبة لقول شراء فسحيا لقول شراء أنت بدن مركا by any reason by any how كل وحي لسوق اللي إن شاء الله وحرتشيني أصور عليه فيديو وحي مقدم بيح سنحرتشيني إن شاء الله أما أنا كل بيصور عليه كرا واضح خاصة جروب كل شيء واتساب جروب حجودك شقوين كي عن سوق اللي goobta xog wadaag waxaa ka mid ah isla markaana halkaan rajin insha Allah inaan uga baaqo asxaabaha kale hay'adda loo yaqaano WFP waxay u baahan tahay assistant store ka bay u baahan tahay berbera looga baahan yahay hay'addan waa garan kartaan WFP waa hay'adda waa barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay shaqadani qofka marka la rabaa waxa weeye qof aqoon u leh dhinaca maxaa yiraahdaa therefore qofkan aqoon ahaan waxa laga baahan yahay inuu ahaado undergraduate waa inuu ahaado ama waa inuu ahaadaa master's degree waa inuu ahaan karaa oo uu ka soo baxay jaamacadda aqoonsan yahay inta badanna storekeeper waa garan kartaanoo dee waa someone referred ku ah meelaha ama warehouse-da ay WFP leedahay qofkaas inuu assistant ka noqdo dadka qofka marka haysta waa assist gareeya caawiyo marka waxaa jira job responsibility-gana qaran jobs waa kuwa ku yaala yukan ama links-ka aan soo geliyay waad kala bixi kartaa waad ka heli kartaa shaqadan iyada CV la diri maayo oo lagu diri maayo hab email ah just kaliya markaad gasho username baad samaysanaysaa username-ka haddaad horu lahaydna waa okay haddaanan username lahayna samayso kadib waxaad ku abale garanaysaa dashboard-ka shaqadaas bay leedahay ayaad ka abale garanaysaa barta ugu dambaysa ee linkiga ay ku qortay apply here ku dhufo kiligare username-ka ku weydiin haddaan lahayna waad samaysan kartaa markaa shaqada hab online ah ayaad ku xareysanaysaa haddii ilaahay ka dhigo qofkii markaa waqti uu saabaxo shaqadan kale aan rajeynayo inaan iyadana aan soo geliyay halkii qaran maxaa la yihahdaa xogwadaag whatsapp group waa hay'ad jarmalah oo iyaduna hargeysa uga baahan qof livestock nutrition research consultant baa loo baahay qof nutritionka ama research ka samayn kara ama researchyahan dhinaca maxaa la yihahdaa nutritionka gaar ahaan marka laga hadlayo livestock ayuu inta badan qofkani la xidhan yahay department ku imanaya waa meal unitka monitoring evaluation and learning qaybta la yiraahdo meal haddaad maqasho MEL waxa weeye waa monitoring evaluation and learning unitkaas waa sameynaya qofkaasi locationku waa Somaliland specifically Hargeysa job name-kani waa livestock nutrition haddii markaa aan u gudbo sida shaqada aad u xareysan karto iyo aqoonta lagaga baahan yahay horta waxyaabaha lagaga baahan yahay methodology ahaan waxaa ka mid ah practical scientific research inaad samayn karto sidoo kale waxyaabaha deliverables-ka ah ee lagaga baahan yahay inaad la kulanto ama sameyso waxaa ka mid ah comprehensive research proposal aad abuuri karto oo arrimaha maxaa la yidhahdaa animal health nutrition iyo waxyaabaha la xidha detail work balan baad la imanaysaa marka aqoontana waxaa laga baahan yahay inaad ka sito bachelor degree in livestock feed marka dadka meelaha veterinary aan filaya meelaha ka soo baxay they can apply content-ka shaqada qofka looga baahan yahay kale inuu aqoonteeda lahaado waxaa ka mid ah ability to plan workload demonstrate ability designing scientific research waa inuu samayn karaa data analysis waa inuu samayn karaa and report writing kana waa inuu fiican yahay qofka xogta isku dabaridi kara waa garan kartaa ardaydii soo martay jaamacadaha dee buugaag qoreen thesis bay qoreen marka research marka hore waa proposal ayaad gudbinaysaa afterna dee baad garanaysaa sidii dee context-ku waad garanaysaa qaabka uu researchka soo mariyay baad fahmaysaa qaabkii baa lasoo marinaya tusaale ahaan kale qofku markuu dee dhaatadii soo ururiyo waa inuu kala haadiyaa waa inuu kala hufaa waa inuu report concrete oo very important oo kasoo saari karaa computerka waa inuu ku fiican yahay luqadda ingiriisiga iyo soomaaligana aad baa inuu ku fiican yahay baa la yidhi shaqadan iyada waxaa lagu apply garanayaa by email baa iyada lagu dirayaa shaqadan oo markaa cover letter-ka waad raacinaysaa sida qorshuu yahay January 25-keeda ayaa shaqadaasi 12-ka maxaa la PM East Africa time ayaa la dirayaa waxa shaqada kale aan rajeynayo saddexaad aan rabay inaan ka yar faalo dara wax weeyaan
IOM hay'adda loo yaqaano Muqdisho Soomaaliya waxay u baahan tahay asset management and warehouse assistant bay u baahan tahay oo Muqdisho looga baahan yahay waa special vacant notice weeyaan grade 5 من shaqadan xagga marka laga hadlayo grade 5 weeyaan qof markuu date-ka xidhmaya shaqada xidhmaysa waa 12 January qofka shaqada inuu bilaabaan markaa wixii ka dambeeyana waa as soon as possible baa taala aqoonta qofka looga baahan yahay si guud laga rabo inaad position-ka dad maadaama xariisanayso marka laga yimaado responsibility-ga oo iyagu qoran oo akhrisan karto oo ku qoran maxaa linkiska qaran jobs waxaa laga rabaa degree dhinaca purchasing and supply management business administration or relevant field or with 3 years of professional working experience in managing procurement and logistics qaybtii procurement iyo logisticada fiilkani kama sii foga waana degree ka haysta dhinaca maamulka iyo administrationka xagga alaab soo iibsiga iyo wixii la halmaala waxa kale laga baahan yahay high school certificate with minimum 5 years haddaad dugsi sare ka baxdayna khibrad 5 years baa laga baahan yahay marka shaqadan habkaad ku xareysan karto skills ka laga baahan karo waxa kamid ah shaqada ku xiran high level of computer literacy waxa kale laga baahan yahay knowledge of SAP highly desirable اللهم صل على محمد luqada afgiriista waana si fiican uga hadli kartaa iyo wixii la halmaala shaqadan habkaad u diraysaa waa hab email ah cover letterkaaga iyo systemka waxyaabaha laga baahan yahay oo dhan emailka IOM ee ku qoran maxaa la barta ugu dambeysa ee xayisiiskan ayaad insha Allah ku apply garanaysaa waxyaabaha ka digtoonaanaysa waxa kamid ah inaad CV-gaaga oo aan update ahayn iska dirto ama aad ku apply garayso shaqada waxaan kaaga digayaa oo kale inaad adigoo aan shaqada description-keeda eegin akhrisan inaad iska xareysato hadhow waxa odhan inuu shaqa la musmaasuqay iyo meel baa laga soo haray adigoo waxaaga iska habaynin taas waa taala ku siinaya waa inaad isku dubarnaataa waa inaad wax badan fahamsan tahay isku da shaqo kasta aqoonteeda ay leedahay sida dhakhtar kastaaba cilmigiisa iyo nidaamkiisa ugu shaqayn karayo marka khayr ya maana la suuq salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh